Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Maanta waxaan bilaabnay tijaabo hor leh oo aan ku doonayno inaan ku sameyno xalwada Soomaaliya. Tijaabadan markii aan dhammaystirno ayaan soo bandhigi doonaa bal sida ay noqon doonto. Laakiin maantaba waan bilownay si aan qorshahan u hirgelino. Qorshahan waxa waaye haddii xalwada iyo biyaha badda ayaa la isku baari doonaa maadaama ay yihiin biyo dhanaan. Ee lagu tijaabi doono isbeddelka ku dhici doona xalwadaasi iyo sida ay noqon doonto. Kusoo dhawaada muuqaal kale oo xiiso leh oo ah bilowgii markii shaqadan aan bilaabaynay. Dhammaantiin waynu naqaanaa xalwa Soomaaliga waa macaan, waa jilicsan tahay, waxaana laga sameeyaa sonkor. Sida caadiga ah sonkortu haddii ay biyo la kulanto way ku milantaa sax. Laakiin maanta waxaan halkan ku sameynaynaa tijaabo la yaab leh. Maxaa dhacaya haddii aan xalwada dhex dhigno biyaha badda? Ma milmi doontaa mise way isqabsan doontaa wayna diidi doontaa in ay milanto oo biyaha kuma dhex milmi doonto? Halkan eeg biyaha badda ayaan dhex gelinay xalwadii. Waxaad moodaa inay markiiba dhuuqayso biyaha, laakiin eeg markaan soo saaro oo aan gacanta ku tuujiyo weli waa sideedii. Way jilicsan tahay, dilaacna ma leh, marna ma isbedelin. Sidee bay waxaani ku dhici karaan ayaad isweydiinaysaa? Cunto sokor ka samaysan oo biyaha cusbada leh aan ku milmeyn. Si aan u fahanno sirta ka dambeysa waa inaan tagnaa chemistry-ga cuntada ama food chemistry. Xalwada Soomaaliga waxaa lagu kariyaa subag aad u badan. Subaguna waa dufan, dufankaasna saynis ahaan waa hydrophobic. Taas macnaheedu waxa uu yahay maado aan biyaha dhex gelin ama aan ku dhex milmi karin oo dibadda u riixaysa unugyadeeda biyaha ama waxa loo yaqaano H2O. Midda labaad, sokorta xalwada loo isticmaalo waxaa loo kariyaa ilaa ay gaarto heer aad u sarreeya oo unugyada aad isku taabtaan ama isku haystaan. Biyaha badda qabowna ma haystaan kulka iyo awoodda ay ku kala furfuri karaan guntiinaha samaysmay ama ay u awoodi karaan inay runtii ay ku dhalaaliyaan arrintaasi. Dad badan ayaa laga yaabaa inay yidhaahdaan baddu ma cusba. Laga yaabaa inay taasi tahay sababta, laakiin markaan ku tijaabinay biyaha caadiga ah ee tuubada, natiijada qiyaastii isku mid muddo kooban gudahood ma aysan noqon. Taasina waxay caddeynaysaa in naqshadda iyo farsamada xalwada Soomaaligu ay tahay mid aad u heer sarreysa dhismaha dhanka sayniska markii laga eego. Ma ahan runtii wax la dhayalsan karo, waa arrin aad u weyn. Tijaabada cajiibkaana waxaad muujinaysaa in waxyaabaha aan maalin kasta cunno ay leeyihiin dhinac saynis ah oo aad u xiiso badan oo u baahan in la baaro. Arrintan horta ma ahan hadda baaritaankii inaan soo bandhignay, laakiin caadiyan xalwadii ayaan ku wadnaa baaris. Markii aan dhammaystirno ayaana soo bandhigi doonaa. Xalwada marna waxaan dhex geli doonaa biyaha caadiga ah ee biyaha Soomaaliga ama ceelasha. Marna waxaan ku dhex ridi doonaa biyaha caafiga ah oo ah biyaha runtii isbedelay. Marna sidoo kale waxaan ku dhex ridi doonaa biyaha tuubada. Marna waxaa lagu tijaabi doonaa biyaha badda ee cusbada leh. Dhammaanna markii tijaabooyinkaas la sameeyo waxaa la rajeynayaa in lasoo saaro tijaabo cusub. Waxaa kaloo rabaa inaan idiin sheego in sidoo kale lagu dari doono oo lagu tijaabi doono biyo kulul in lagu dhex rido. Waxaa kaloo jira shaybaar aan ku sameynay xalwada Soomaaliya ama xalwada Soomaaliya laga isticmaalo, taas oo ayada laftigeeda marka shaybaarka la saaro soo saari doonta dhibaatooyinka runtii ku dhex jira. Dhaqaatiir badan ayaa ka digayay isticmaalka xalwada Soomaaliga iyagoo sheegaya in sokor iyo sidoo kale rinji ay ka samaysan tahay. Laakiin farsamadu waxay u muuqataa mid arrintaasi ka heer sarreysa. Maadaama cilmi-baaristu weli socoto oo welina aan la soo bandhigin, mar walba inaan ka hor dhacno natiijada soo bixi doonta iyo waxa ay noqon doonto. Laakiin kaliya waxaan rabnaa inaan wadaagno inaan bilownay arrintaasi. Tan hadda maanta inaan wadaagaynana
waa tii dhanka badda aan ka sameynay. biyaha badda xalwadaas waxay ku jirtay muddo runtii lagu tilmaami karo 4 saacadood ilaa iyo ka badan. kadibna ma jirto sidaa dareemaysaan wax isbedel oo ku dhacay. marka kuwii tuubadana waa soo wadnaa, biyo saxadiina waa soo wadnaa, biyaha oo kulul oo heerkulkoodu sarreeya markii la geliyana waa soo wadnaa, iyadoo sidoo kale shaybaaradii iyo food chemistry lagu sameynayana waa soo wadnaa. arrintan waxay qaas u tahay food chemistry dadka yaqaana ayaa fahmi kara, laakiin natiijada ugu dambeysa ayaan rajeynaynaa inay dadka dhan ay wada gartaan sida ay noqon doonto. aad u mahadsantihiin. fadlan nagu soo biir haddii aad nagu cusub tahay si aad ula socotid warbixinada kale ee aan halkan soo geli doono. waad mahadsantihiin.